waryaadaheen halo waa qumayo xor xildiid waa anigii soo laabtay maad iska fiican tihiin. So waxaan idhi sheekadii ku saabsanayd the Kasimi maxaan ku dhahay energydan Kasimi la idhaaho baynu macnaynaynaa xalay toole I think videogii aan shalay soo dhigay halkaasaan ku ekaysiiyey. So Kasimidii baynu macnaynaynaa iyagu say leeyihiin waxa weeye waxay ku tilmaamaan at the heart of the sun ama the center bay ku tilmaamaan energygan saameynta ay leedahay waa saameyn like the powerful oo energy de muhiima oo xoog leh oo de quwad leh weeye oy dadka wax ku fahmaan oo maskaxda kala furaysa. marka anigu saan u fahmay ayaan u macnaynayaa so wanigii idinka soo sheekeeyey Kasimi waxa u bixiyey nin la idhaaho Sahal ibn Bashir al-Israeli baa la idhaahaa oo wuxuu ka tirsanaa wuxuu ahaa astrologer buu ahaa nimanka dee xidigiska akhriya iyo culumadii ama dee scholarskii golden age Islamic golden age 9th century buu ka tirsanaa marka waxaa la yidhaahaa Persian buu ahaa ila wax kasta halkaasaa la geeyay reer galbeedka gaajada la yidhaha iyagaa wax kasta idiin keenay iyagaa diinta idiin keenay waa kuwa imika dee wadamadan carbeed jooga sanka dhaadheera iska dhiga inay carab yihiin oo dadkii asalka oo dadkii diinta kusoo degtay yihiin hadhow tooleba gadaal waxaan ka fahmaysiin waa haddaad maskaxdiina furan tahay so taasaan yar macnaynayaa. maxaa kale rabaa inaan ku daro also waxaynu isticmaalaynaa waxay yidhaaheen horta anigu markaan astrologyga wax weydiiyo xidigiska markaan wax rabo inaan eego xitaa kaararka tarot kaarka markaan akhriyayo su-aal baan always weydiiyaa ama dee waktigaa waxa taagan baan su-aal ka weydiiyaa saasaan u akhriyaa marka kan isagu soo bandhigana waxay kuleeyihiin wuxuu ahaa horary astrology waxa la yidhaaho horary oo ku saabsan hora ama dee hura waxbaa la hurinayaa sooma waa waxa markaa taagan dabka shidan waa all dee hadhow toolana hour noqon doonta waa masaaridii hore waxay u yaqaaneen horus waa cadceeda weeyi ma fahanteen horus ilen horus waa cadceeda marka su-aal baad weydiinaysaa marka horary astrology su-aal baad weydiinaysaa maanta waxa taagan waxbaad rabtaa inaad ogaatid and then cimalaha iyo dee waxaad isku eegaysaa meerayaasha halkay joogaan marka taasaynu isticmaalaynaa oo waxaynu weydiinaynaa sheekada ka socota Soomaaliya marka specific question baynu weydiinaynaa waxaan weydiinaynaa sheekada Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh labadoodan yaa garabta ay raacaysaa ma fahanteen ilen waa kan midi yidhi kaasaa lasoo qabto kana waa ka yidhi maya adigaa lagu soo qabanaya marka su-aal baynu weydiinaynaa yaa lasoo qabanaya labada nin ayaynu weydiinaynaa kaararkaygi tarot kaarkaygi hadhow toole baan akhriyaya saddex kaar baynu lasoo baxaynaa oo dee waxaan oranaynaa hey de maxay ahayd waxaan labada nin u dhexaysay past situationkoodii baa inoo soo baxaya then imika waxa taagan baa inoo soo baxaya waxa laysku haysto iyo dee actionka ama dee futureka sheekadu meeshay ku dambeyn doonto marka saddex kaar baynu usoo saaraynaa aynu akhrinaynaa video kalan soo dhigayayo oo ku saabsan horary astrology oo waxaynu akhrinaynaa cimilada energyga collectively waxa saameyn inagu leh waa markaan dee maxaan ku idhaha bahalkii Kasimiga idiin macneeyo markaasaynu akhriyi doonaa halkan aan soo dhigi doonaa anigoo isticmaalaya the chart ama the astrology wheelka isticmaalaya chartka ayaan soo dhigaya maxaa kale aan ku daraa intaas waa intaa dee soo imika macnayntii Kasimi anu saan u arkayo ayaan ka hadlaynaa but as usual intaynu sheekadii gudagelin maaragtay aynu faynuuska daarano meesha waa mugdi waxba lama arkaye aynu faynuuska daarano saynu wax u aragno waan iskube
yeah faynuuskii waa inoo daaray waxba lama arkayo faynuus Venus wallaahi waa laftigeedii yeah faynuuskiina waa taa waa inoo daaray this western hemisphere-kan maaragtay mugdi baaba la noqonayaa 4 galabnimo khumkhumtiina waa inoo daarayaa khumkhumtii shayaadiintayna meesha ka saaraynaaye way soo wada badheen shuuq bay u badan yihiin maalimahan wallaahi bilaa haddaad odayaal taliya haddaad niman diin leh shuuq fiican haddaad soomaaliya leedihiin xitaa adduunku hadday jiraan dad muslimkan isku sheegaya ya hadday jiraan adduunku sidan mu ahaayeen ya cadaalad baa jiri lahayd justice baa jiri lahayd ya golden age baa jiri lahayd laakiin ya shayaadiin baa ka buuxda meel kasta oo haddaad diinta wax uga sheegto waxay kornaya adigu ma ka hadli karaysid annagaa ka hadlayna hadda waa niman habeenii maalin ku mashquulsan balaaya isfuulaysa iyo naag hoosteed iyo waxaasun bay ku mashquulsan yihiin cilmiba ma raadinayaan ma fahanteen balaakiin adiga haddaad ku arkaan adiga wax ka hadlaya diinta way soo ordaya maxay kornaya waxba kama garanaysid maxaad u hadlaysaa naag baa tahay waa la waashay hata nin naagtu ya labaduba inay 9 bilood ku dhashaan ma ogtihiin ya nimanku aniga yidhi beri hore waa kala jaan weeye ya waa x iyo y dana waa x jaban waa wada langaabin wax alle waxay ogyihiin adduunkana ma jirto ya sidii maskun bay 100 sanaba ay isku daba wareegtaan ay isku cunaan okay intaas waa inta wixii dhan waa inoo wada shiday horta maalimahan maaragtay walaahi waaban daalanahay weekend gymkii baan dib ugu laabtay maadaama ay mugdi tahay oo iminka dee winter tahay yeah so 3 saacadoodkii dee aan lugeyn jiray ama lugeyn karayo marka waxaan istiri yeah 4 bilood ee mugdigu jiro gymka iska gal waan galay walaahi bilaahi waaban daalanahay horta waxbaan tijaabinayaa AI ama ChatGPT yeah ayaa waxaan ku idhi waryadahan su'aalo prompt fiican baan siiyey waxaan ku idhi sidan iyo sidan iyo sidan baan rabaa jirkayga inaan u dhiso waxaad isiisaa plan dhan si meelahan rabo inaan wax ka hagaajiyo walaahi plan dhan buu isiiyey so marka plankii baan qortay oon soo tijaabinayaa hadduu nice noqdana dee waan idinla wadaagayaa promptkan siiyey saan anigu wax u weydiiyey ayuu isna isiiyey jawaabihii aan u baahnaa ma ogtahay marka plan fiican buu bay sameeyay ma fahanteen marka waa soo tijaabinayaa waa idinla wadaagayaa haddaad rabtiin aynu micnayno kasiimigii yeah in the next video